السلام عليكم أصحابتي كحرة جنال كسو دوادا ومركلي مقال كلي ولكن حسن عدلي هذا هدي أكو عصبتها جنال كايلو الناس سبسكرايب سيرتيد waxayni wada muuqaal kale anada muuqaalkan wuxuu noo ahaan doonaa tixane insha Allah kusoo dhawaada muuqaalka aynu guda galno markaa muuqaalkan aan doonayo inaan maanta idinla wadaago waxa uu yahay waxaa jirto filin oo ah filin jecel waaye waa Darkness of Sorrow adigan daawadanayo muuqaalka hadii uu ku qanciyo muuqaalka like saar asxaabtaan la sii wadaag okay no bilaw muuqaalka markaa Mama, Kayla says she's bored and wants to take a walk to the riverside. waxa uu dhahay hello hooyadiisu la hadlaya hooyo gabadha wuxuu ku caajisay guriga ma gee kara riverside ka Why is she? She's at a room, ma. aawayadi waxay ku jirtaa guriga Kayla. How are you doing today, Kayla? sidee tahay maanta I'm feeling okay. It's better. Thank God. allah ma hadii iska leh waan fiicanahay Mama, I want Chrissy to take me to the stream so that I can hear the sounds of the birds. mama waxaan doonayaa in crazy walaalkeed ayaa laga wadaa inuu ii qaado banaanka si aan u soo dhigansado shimbiraha codadkooda iyo xaas Okay. Chrissy, take good care of her, huh? I will. Don't be long in coming for lunch. crazy si fiican gabadha uga taxadar waa la dardaarmaysaa waa la hadlay wiilkeedii la hadlaysaa gabadha si fiican uga taxadar ilaali si tartiib ula joog la soco asagana muxuu sameyn doonaa markaa Don't be long in coming for lunch, huh? Yes, ma'am. Take good care of yourself. okay ka taxadar naftaada Oh God, you won't allah I know allah you won't abandon her like this to the rest of her life. Let your glory fall upon her. gabadhi waa la soo waday meeshan ayaa la keenay waa meel oo buuro ah buurtaas ayay soo korayaan markay soo koraan kadib maxaa dhacaya Pass on this side of the road. This is the easiest part of the road you can pass, sister. kuwaas waa ay soo korayaan meeshay soo koreen This place is very hilly and it's all rocks. Sister, I'm just wondering. meesha maxaa waaye waa qayb ka mid ah wadadii ayuu dhahay qayb ka mid ah wadada aan marayno aan meesha ugu socono waa marinkii aan ugu mari lahayn meesha inaan korno it means waa wadadii aan meesha ugu mari lahayn waa ay soo koreen Chrissy, what are you doing? maxaa samaynaysaa crazy Fight me! Chrissy, are you fighting? You are very like. dagaal baa ku jirtaa Because I stand. gabadhi waa iska soo baxday bal eeg waxa dhici doona Hey, wait! What's wrong with you? waa ay naxday gabadhi waa la badbaadiyey adi may kula joogtaa maxaa kaa qaldan okay gabadhi waa la soo waday gurigaa la keenay gaarigaasaa lagu keenay
Next time, make sure you lead him properly. Okay, be more careful. marka dambe oo soo weydiisay si fiican uga taxadar gabadha Just leave her just like that. halis ayuu geli rabay Thank God the Good Samaritan was right there on time to ma save. hadda iskale oo badbaadiyay gabadheeda I mean, what was the need going out with a brother who can't lead you through the right direction? maxaadan ugu kaxeen macnaha meesha saxan gabadha oo aadan ula joogin Kayla, kayda Kayla, I don't have any other child left in this world except you. ani gabar kale ma haysto aan adi ahayn oo aan dunidan uga tagay Please, so only God knows what would have happened if that man was not there in time. kaliya alla ayaa ogaan kara waxa dhici lahaa haddii uusan ninkan uu joogi lahayn meesha I'm not talking too much. doroba hadalaa naqata maamoy isdeji maanta oo dhan kusoo culinaysaa macnaha You know that you are not wrong. Shut up. aamus Who told you to lead her through the rough road? yaa kuu sheegay gabadha inaad wadda rafa ku kaxaysid Is there no other road to the stream? But man, Kayla is okay. hadda keeli way fiican tahay You are talking as if it was through your effort that she was saved. If that man hadn't gotten there in time, only God knows what would have happened to my daughter. oo kusoo celisa haddane haddii uusan ninkaas meesha joogi lahayn alle ayaa og waxaa dhici lahaa okay Where is the man who saved her? aaway ninkii badbaadiyey He's gone. wuu What baxay is his name? magaciis I said, what is the name of the man who saved her? waa maxay magaca ninka badbaadiyey gabadha We don't know his name, Mama. ma naqaano magaciisa maamoy He didn't give us a chance to say thank you. ma uusan na siin waqti aan ku dhahno waa mahadsan tahay All he did was to bring us home, and then guriga he uuna drove keenay off. kadib wuu iska laabtay Tomorrow, we will go to church biri waxaan aadi doonaa church micnaha kaniisadda si aan ilaah u barino badbaadinta uu adiga uu ku badbaadiyey to God for saving your life. Kayla. Kayla. Mama, Come and take this. Come inside. soo gal guriga allahi Pack all those things. qaad waxaan ashyaadaan dhan qaad allah ninkan waxyaabahan ka warwareeji meesha And I don't want you out of this house. Am I clear? ma doonayo inaad ka baxdid gurigan wiilka ayaa lala dardaarmayo maamada la dardaarmayso there's so much noise here. It is as though there's a fight here. Yes, nobody. What? That's his voice. What are you talking about? maadaama gabadhu ay tahay gabar oo camoola ah oo indhoola ah haddana waxay maqashaa codka qofka mar hadduu indhoolo yahay waxaa niyaddiisa kusoo dhacaysa macnaha codadkii dadka qof walba codkeeda ay taqaanaa qof walba codkeeday kasaysaa marka codkii si fiican u dhegeysanaysaa waxayna dareemaysaa inuu codkan uu yahay ninkii badbaadiyey iyada haddaba maxaa dhici doona Don't know, but I'm sure he's around here somewhere. waxaan filayaa inuu joogyo meelahan si fiican u dhegeysa ay dhahaysaa wiilkay tusaysaa Oh, there is he. hadda ayuu arkay See, take me to him.
igee dhahday asaaba noo soo socdo dhahay Yes, sister. okay Hey. Hello. How are you two? I'm fine. sideetiin labadiina Yeah, she's fine. Way fiican I want to say a prayer for you for saving her life. She's been for you all day long. maanta oo dhan ay ku raadinaysay si ay kugu mahad celiso badbaadintii aad badbaadisay iyada Chrissy, keep quiet. keep No, quiet you can go home now. I'll find my way. macnaha wiilkii la dardaarantay waxay dhahday iska bax hadda noloshayda waan helay iska bax markaan I don't want him to go and start on me. She'll be fine. She'll be fine. She's a big Way girl. You fiicnaan can take care doontaa of yourself. You can take care of yourself, right? waa ka taxdiir kartaa naftaada soo maan So, is it true you've been looking for me? ma dhabbaa in aad raadinaysay is it true that you have been looking for me No, I wasn't. maya maya My maya mom asked me to apologize to you whenever I meet. maya 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 aniga ma ku raadinayn laakiin hooyaday ayaa i weydiisatay in aan adiga ku raali geliyo You. Apologize. apologize For what? raaligelin oo noocee ah Well, for saving my life. raaligelin ku saabsan badbaadintii aad badbaadisay noloshayda No, I never got the opportunity to say thank you. ma aanan helin fursad aan kugu dhaho waa mahadsan tahay If you hadn't come, I would. haddii aadan imaanin waxaan hubaa in I mean, okay waa kana waa sorry, ku joogaa I'm here. Okay? Apologize. I'm listening. i raaligeli waa ku dhegaysanayaa Thank you very much for saving my life. waa ku mahadsan tahay badbaadinta aad badbaadisay nafteyda Sir, please, are you a visitor in this place? mudane ma waxaa tahay booqde soo booqday meelahan Me? No. maya aniga I'm a maya son of this land. I'm born and bred. ani meeshaan waan ku dhashay waanu ku barbaaray Right now, I'm around doing a project. hadda meeshaan waxaan ka sameynayaa project aan ka sameynayay Well, though I'm blind, inkastoo aan ahay indhoole I have a waxaan leeyahay maskax fiican taasoo aan ku xifdiyo codadka dadka xaafadan joogo very good memory in remembering voices, and I have never heard your voice in this neighborhood. anina weli ma aanan ku maqlin cod sidan ah nawaaxigan ama neighboringkan That's because I don't talk much and I don't mix much. taasina waa sababta aniga in badan ma hadlo in badanne wax ma sameeyo sida taas ayaana sabab u ah inaadan codkayga maqlin because qof goorma codkiisa maqlaysaa waxaad maqlaysaa markii uu soo baxo uu bannaanka imaado uu dadka la sheekaysto uu dadka la kaftamo at that time codkiisa ayaa maqlaysaa sax laakiin haddii aad gurigaaga iskaga jirtid aadanba soo bixin codkaagaa maqlayo that is because I don't work much and I don't make much Well, thank you again, sir. I have to be leaving now. mar labaad waa mahadsan tahay waxaan doonayaa hadda inaan baxo I can take you. waa ku qaadayaa But what's your name? magaca Kayla. Kayla. That's a beautiful name. taas waa magac fiican And your brothers? walaalka His name is Chrissy. crazy ah Oh, okay, great. Let me take you home, okay? aan ku qaado All right. Slow. Right there. okay gaariga ayay soo gashay waa la qaadi rabaa marka How are you, Quizzy? sidee tahay I'm on my way to the house. Is guriga Kayla hadda there? u socdaa Kayla ma joogtaa I got her this cane. ushan ayaanu soo helay usha ul ayuu u keenay usha waa usha curyaamiinta oo dadka indhoolayaasha loogu talagalay ushan ayaa u keenay uu leeyahay Kayna allah waa qurxan tahay ugey soo gal allah gaariga soo gal
au geynayna okay way soo bixin okay back in الجلي gaariga as you can see here Chrissy, this is beautiful. tani way qurxan tahay But how did you get this? sidee ku heshay Who gave it to you? yaa ku siiyey Uncle, sir. nin Sir? saa ayaa i siiyey mudanihi ayaa i siiyey xaggee kula kulantay Along the road. waddada So where is he now? aaway hadda He's gone. ha u sheegin alla ha u sheegin waxay dhehayso fiir rabaa macnaha reactionka ay bixin doonto ayuu rabaa inuu arko sax wuxuu dhaa marka ha u sheegin waxba ha sheegin asaga marka wuxuu leeyahay wuu baxay Chrissy, this is beautiful. tani way qurxan tahay So Chrissy, how does the stair look like? mudanuhu saa macnaha maadaama magaciisa aysan aqaanin waxay ugu magac waxay dhahday saa marka mudanuhu siduu u eg yahay ma dheer yahay Is he tall? ma dheer yahay Is he short? ma gaaban yahay Is he handsome? ma qurux badan yahay Chrissy, talk now. ka hadal crazy hadal Do you think the stair likes me? ma malaynaysaa in mudanuhu uu i jecel yahay muxuu dhihi doonaa Yes, I like it. Oh my god. Chrissy, you didn't tell me the stair was ma ii here. sheegaysid miya in mudanuhu uu joogo meeshaan okay intaan ayaa kusoo gabagabeynaa maadaama uu dheer yahay qayb ayaan ka dhigaynaa qaybtan waa part 1 haddaba haddii uu ku cajab geliyay muuqaalkan please commentiga igu reeb si aan u soo badiyo muuqaalo badan aan ugu soo sameeyo muuqaaladaanne tixane ayay noo ahaan doonaan insha Allah dadkii dhahayeen waraaniyo hadalkaaga ma fahanay iyo saana tahay iyo waa kaasa waa soo laabtay asxaabteyda aad u mahadsantiin waxaad tihiin dad sharfan Allah idin karaameeyo haddaba haddii aad ku cusubtahay channelka ay leeyihiin inaad subscribe gareysid la gareysid muuqaalka la garey commentigaaguna waa inuu muhiim please wish you all the best guys